degdeg markii ugu horeysay oo xog laga helay safarkii Xasan Sheikh Maxamuud ee Iran. Wasiirka arrimaha dibadda oo qarxiyay is-araggii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhagiisa dalka Iran Ibrahim Ra'iisili waxay ka wada hadleen. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huursi waxa uu yeeray guddiga arrimaha dibadda ee Golaha Shacabka markii ugu horeysay. Waxaa wax laga weydiiyay arrimaha ku saabsan haddii ay jiraan xiriir dowladda dhexe ee la leedahay dowladda Iran iyo sidoo kale inuu guddiga la wadaago is-araggii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Iran waxay ka wada hadleen. Wasiir Huursi ayaa marka hore waxa uu beeniyay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu isku dhiibay dowladda Iran isla markaana uu aqbalay xiriirka Soomaaliya iyo Iran. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xitaa uusan jirin wax isku soo dhawaasho oo ku aadan Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Iran. Wasiirka ayaa yiri sideedaba safaarad annaga Iran nooga furan iyo xiriir diblomaasiyadeed oo Iran aan la leenahay ma jirto, sidaa awgeed ma lihin diblomaasiyad noogu qoran safaaradda Iran. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huursi waxa ay wax ka weydiiyeen inuu jiro sarkaal ka tirsan wasaaradda oo mushaar toos ka qaata safaaradda dowladda Iran ay ku leedahay magaalada Nairobi. Waxaa jira sarkaal kula laabtay Iran, waa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Ninkaas xaaladiisa ma la socotin ayuu wasiirka weydiiyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Abshir Huursi oo arrintaas ganafka ku dhuftay waxa uu sheegay in dowladda ay ka hortagi doonto cid kasta oo ku dayda in magaca Soomaaliyeed ay u adeegsato dan gaar ah. Waxa uu kaloo intaa ku daray haddii ay jirto cid aan wasaaradda ka tirsaneyn oo xiriir la sameysay dowlado aysan xiriir lahayn Soomaaliya in ay dabagali doonaan, isla markaana haddii la helo laga qaadi doono tilaabo adag oo ku aadan wax oo sharciga dalka ka qabo. Haddii ay jiraan shakhsiyaad iskood u taga oo wax gaar ah wata ma ahan wax ku saleysan janaalka wasaaradda dowladana ay ka warqabto. Cid allaala oo arrintan aad sheegtay ku kacda mas'uuliyad ayaa inaga saaran inaan ka hortagno. Maalmihii ugu dambeeyay guddiyada kala duwan ee baarlamaanka ayaa waday qorshayaal ay kula xisaabtamayaan xubnaha golaha wasiirada si wax uga weydiiyaan shaqadooda. Markii ugu horeysay ayay noqotay in xog laga helo safarkii qarsoodiga ah ee Xasan Sheikh Maxamuud oo ku tago dalka Iran, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda uu beeniyay in Xasan Sheikh Maxamuud uu bilaabay cilaaqaad hoose oo la leeyahay dowladda Iran. Xasan Sheikh Maxamuud oo warbaahinta ka warheshay in safar qarsoodi ah uu ku tagay dalka Iran ayaa muddo badan lagu xamanayay inuu dib u soo nooleynayo xiriirkii Soomaaliya iyo Iran, iyadoo inta badan Xasan lagu eedeeyay inuu galay heshiisyo qarsoodi ah oo saameyn ku lahaanaya diinteena Islaamka. Balse wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huursi ayaa markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed u faahfaahiyay safarkii Xasan Sheikh Maxamuud ee dalka Iran.